kula jirta umadka dhaqanka adduunka dagaal kasta oo la soo maray ilaa kii koobaad adduunka iyo kii jahliga iyo kii la soo maray nimankaas ummadda Soomaaliyeed dhibaato Itoobiya dib ma geysan karaan iyo qora ay dib u geysan karaan male laakiin ummadda Soomaaliyeed oo kiilkaas ku nool dhibaatada ay u geysteen taariikhday gashay dad wiilal iyo naago iyo ilmo saqiira inta laayaan oo isku sawiraan inay ciyaar iyo baanto ku qortuntaan cabdi ilay iyo xisbiga hadda la sheegayo oo meesha hore u joogi jiray uma taqaanaa lagu arkay adduunka gaalada xaqaylida gaalada waa karta aadan ku fahmay siyaasiyiin waxaa jiray markii hore cabdi maxamuud cumar iyo xisbiga mucaaradayay kadib markii arrintan timidna bedelay oo Addis Ababa ugu tagay waad igaga jawaabi doontaa taa laakiin waxaan ka hormarinayaa military baa weeraray jigjiga military ayaa jigjiga weeraray markuu jigjiga weeraray kadib waxa la yiri Oroma weerartay Soomaali annagu taa fikradeedu ma lihin adaan ku weydiinaya ciidanka weeraray jigjiga maxaad ka aaminsan tahay ciidanka weeraray inay tagaan xaqayba absolutely waa sax baa inay tagaan because wadanka mas'uuliyada ka saaran wadanka meeshii ay u arkaan inay qalalaasa ka jirto inay tagaan weey waxay u arkaan inay dhibaato ka jirto firi ciidanku ma aan ciidan ka yimid mataqaanaa Djibouti iyo Soomaaliya iyo mataqaanaa Eritrea ka yimid ma ciidan Itoobiya waa qabiil hadda ninkii iga horeeyay eray oo isticmaalay inuu yiri amxaara iyo mataqaanaa Tigray iyo meelay ka soo kala arareen fadad waarana uu hadla bal ilaahay ku dhaarshay firi ma ciidan guuta oo meel degan ama urur oo meel degan la yiri gaashaas oo gal u taga ama arinta ka soo fuliya qabiil u soo kala harari kara bal ilaahay ku dhaarshay waxa dadka raba in laga baadhiyo loo sheego firi fadladeed dadka ciidankaanu wadanka Itoobiya mas'uuliyada uu ka hayaa meeshii lagu amro iyo howlgalkii loo dirana waa inuu qabto Itoobiya isla ognaay anigu waxaan joogi jiray xilligii dargidii la sheegi jiray iyo kasii hore ku noolaa wadankaas oo kala aqaana waxa weeye marka kasta oo wadankaas soo maray markii ugu dhaqanka xumaan nimankii waxay ahaayeen qadiiday hogaaminay wadankaas soo maray oo Soomaaliland oo ogaadeen lahayd oo cidaysan u maxarsan aan la arag oo haddana iyadoo fiiri marqaati waxaad iga tahay nimankii wadanka la deganaa jiray geligood Soomaaliya dadka qaxootiga ku away dadkii kilka shanaad deganaa oo Soomaaliyeed waa dadka qaxootiga Soomaaliya gudaheeda ku ugu badan barakac lagu sheega waa dadkii Itoobiya ay ka keeneen mataqaanaa Itoobiya soo barakacay ma dhibaatay waxaan u isticmaalayo oo mataqaanaa Soomaalida ay baabiya Tigray oo isticmaalis حدودي انت يمادين وقد يمادين حدودي صومالي واحد يقطع واحد يساق لاين واحد مريحان لاين واحد مثلا هويه لاين هبل قدر لاين واحد شيقان لاين قولوا بحدودي انت وقد مرقاتو حياته باي بقول هذا ايانو انت يمادين لما حوين وقال يا ارسك الى الشاه كلوا قرايا markaas waxay leeyahay argagaxis raayeen argagaxiday bas hadii ilaahay umada ka soo gaaray oo ilaahay abi waxaan u arkaaba ilaahay dad oo soo diray umadaas inuu ku badbaadiyo ninkan oo keenana waan ku taageeraynaa waana oo ku saxan yahay ilaahay baa umada ka qabta qur'aan umad markay xaqiraayaan waxay leeyihiin gobolka ayaga ugu badan kaligooda maamuli kara aw umadii degi jirta wadanka waa la siqaare aw umadii degi jirta haye أنت كنا لا تتودن كاو أو مدي هوية أو هذا فيري هل أري بس القوس وقاضي هل أري كريم قوس وقاضي يا طبعا أري ربع إن نحاول كذا دحين وأنا قبضتك وأيانه وذاك كعام صببت